sheekadu waxay ka sii socotaa halkii aynu ku joognay. Waxaan ogaanay in magaalada hawada ka muuqata ee dhalanteedka ah aysan ahayn uun sawir been ah, balse ay tahay magaalo dhab ah oo duulaysa. Waxaad moodaa UFO qadiimi ah oo cirka ka soo degtay. Magaaladan birta ah waxay ku soo degtay harada muraayada, halkaas oo ay kooxda geesiyaasha ahi ku weerareen rag dhar madow xiran. Laakiin si lama filaan ah, raggii madoobaa dib ayay u gurteen oo way carareen. Haddaba waxaa dhacday mucjiso kale oo dadka magaalada Dinjow argagax ku riday. Habeen madow dadkii tiradoodu ahayd 200 oo qof ee horey loo afduubtay ayaa si lama filaan ah dib ugu soo laabtay magaalada. Laakiin dadkani dadkii hore ma ahan. Waxay u socdaan sida meydad la soo saaray. Indhahoodu waa bannaan yihiin, wax dareen ah kama muuqdo. Xasuustoodii oo dhan waa la tirtiray. Cidna ma garanayaan xataa ehelkooda iyo carruurtooda. Waxaad moodaa in maskaxdooda la dhaqay. Shiye oo ah dhakhtar maskax badan ayaa eegay dadkan soo laabtay, wuxuuna yidhi kani ma ahan cudur dabiici ah, dadkan waa la sixray ama wax ka weyn ayaa maskaxdooda laga beddelay. Dhibaatada ugu weyn waxay haysataa gabadha ugaarsatada ah ee Sinqiyaan. Waxay baadi goobaysay dadkii soo laabtay, weji kasta way eegtay iyadoo rajaynaysa inay aragto walaalkeed Sinshin. Laakiin nasiib darro 200 oo qof ayaa soo laabtay, balse Sinshin kuma jiro. Isaga kaliya ayaa maqan. Tani waxay Sinqiyaan ku riday walwal iyo murugo hor leh. Kooxda geesiyaasha ah oo uu horkacayo Kao Sheng oo ah ninka xeeladaha dagaalka dejiya, waxay isugu yimaadeen shir degdeg ah. Kao Sheng wuxuu yidhi haddii ujeedku ahaa in sirta la qariyo, maxay u dili waayeen dadkan? Maxay u soo daayeen iyagoo xasuusta laga tiray? Iyo sababta ay magaalada duulaysa u sii joogi weyday harada. Waxay go'aansadeen inay baaritaan sameeyaan. Sinqiyaan oo leh dareen urta sida eeyga ugaarsiga ayaa tagtay goobtii ay kula dagaalameen raggii dharka madow xirnaa. Waxay dhulka ka soo qaaday gabal maro madow ah oo ka haray cadowga. Sankeeda ayay u dhaweysay. Urtaan ayay tiri iyadoo indhaha isku qabanaysa. Waa urta fooxa lagu shido macbadyada. Waana ur culus oo marada ku raagtay. Tani waxay ka dhigan tahay raggiina soo weeraray inay muddo dheer ku dhumaalaysanayeen meel macbad ah. Magaalada Dinjow waxaa ku yaal 2 macbad oo Buddhiste ah iyo 1 macbad oo Tao ah. Shiye ayaa isla markiiba gartay meesha ay tahay. Waa macbadka Wuji. Macbadkaas dhawaanahan uu xirnaa, waxaana la sheegay in dayactir lagu hayo. Laakiin waxay u muuqataa in dayactirkaasi uu yahay mid lagu qarinayo ciidan iyo sir culus. Laakiin macbadka Wuji ma ahan meel sahlan. Wadaadka haysta waa nin awood badan oo qaraabo la ah gudoomiyaha gobolka. Si ay u hubiyaan shakigooda, Shiye wuxuu adeegsaday xeelad. Wuxuu iska dhigay nin taajir ah oo doonaya inuu lacag ugu deeqo macbadka, wuxuuna garaacay albaabka. Albaabka waxaa ka furay nin wadaad ah, balse wejigiisu uusan naxariis lahayn. Shiye wuxuu yidhi waxaan ahay nin cibaado u yimid, waxaana wadaa sanduuq lacag ah. Wadaadkii xataa lacagtii ma eegin. Si qalafsan ayuu albaabka ugu xiray Shiye, isagoo leh dayactir ayaa socda, cidna ma soo geli karto. Diidmadaas waxay ahayd calaamad cad. Sidee macbad dayactir ku jira u diidi karaa lacag deeq ah? Habeenkii kooxdu waxay sameeyeen tijaabo labaad. Waxay cirka u direen laambad shidan oo ay dabayshu u wado dhanka macbadka. Isla markii laambadii ay dul martay derbiga macbadka, waa la fuuriyey. Falaaro aan la tirin karin ayaa gudaha laga soo ganay, laambadiina hawada ayay ku burburtay. Tani waxay caddaysay in macbadka Wuji uusan ahayn goob cibaado, balse uu yahay xero ciidan oo ay ku jiraan 100 askari oo hubeysan. Sinshin iyo sirtii magaalada duulaysa halkan ayay ku jiraan. Dhinaca kale waxaa jira sheeko murugo leh oo qoyska dhexdiisa ah. Liu Guanying, tuuga halyeyga ah, gabadhiisii yareyd ee Tun ayaa ka mid ahayd dadkii soo laabtay. Laakiin gabadhu aabbaheed ma garanayso, ayeeyadeedna ma garanayso. Markii ay guriga timid, waxay aragtay ayeeyadeed oo ooynaysa. Inkastoo Tun aysan xasuusan waayeelkan, haddana gabadhu waa mid caqli badan oo naxariis leh. Waxay iska dhigtay inay wax walba xasuusato si ay ayeeyadeed u farxad geliso. Ayeeyo, ha ooyin, waan soo laabtay, ayay tiri iyadoo jilaysa. Habeenkaa iyadoo Liu iyo qoyskiisu ay cashaynayaan ayaa waxaa bannaanka laga maqlay cod yaab leh. Miyaw! Miyaw! Waa codka bisadda, laakiin bisad ma ahan. Waa Baawga, ninka xogta iibiya oo soo dhumaalaysanaya. Liu albaabka ayuu furay. Baawga wuxuu u dhiibay warqad sir ah. Ha furin, waan ogahay waxa ku qoran, ayuu yidhi Liu. Waa goobta uu ku dhumaalaysanayo Linhan. Linhan waa taliyihii khiyaanay Liu 4 sano ka hor, sababna u ahaa dhimashada saaxiibadiis. Hadda Liu wuxuu haystaa fursad uu ku aarguto. Isagoo xiran dharkiisii dagaalka, kuna hubaysan warankiisa, Liu wuxuu aaday goobtii lagu sheegay Linhan. Markii uu u galay, Linhan wuxuu fadhiyey miis, isagoo khamri cabaya sidii nin geeri sugaya. Liu wuxuu qabtay warankiisa, indhihiisana waxaa ka shidan dab. Caawa waa habeenkii aad bixin lahayd daynta dhiigga. Laakiin Linhan ma nixin. Wuxuu yidhi waan ogahay inaad idili rabto. Laakiin hal codsi ayaan ku weydiisanayaa. Ii ogolow inaan dhameeyo hawl aan gacanta ku hayo. Markaan dhameeyo, naftayda adigaan ku hibeeyey. Liu wuu diiday. Waqti dambe kuma harin. Markaas ayuu Linhan adeegsaday kaarkiisii ugu dambeeyey. Wuxuu yidhi erey Liu wadnaha jaray. Haddii aad idisho hadda ma ogtahay inaan hooyada u sheegi karo in wiilkeedu uusan ahayn nin rooti iibiya, balse uu dhintay 4 sano ka hor. Tani waa hanjabaad culus. Linhan wuxuu og yahay in Liu uu hooyadiis ka qariyay inuu yahay dilaa ama askari hore. Wuxuu hooyadiis u sheegay inuu yahay nin ganacsada ah. Haddii sirtaasi bannaanka timaado, hooyada wadnaha ayaa istaagaya. 2 nin oo col ah ayaa is hor fadhiya. Waranku dhuunta ayuu saaran yahay. Talow Liu ma dili doonaa ninkan, mise sirtiisa ayuu ilaashan doonaa? Dib aan ugu laabano qolkii uu Liu Guanying kula kulmay Linhan. 2 nin waxay isku hayaan waran iyo seef, laakiin Linhan wuxuu adeegsaday hubka ugu khatarta badan, sirta qoyska. Linhan wuxuu yidhi imise sano ayaa laga joogaa markii ugu dambaysay ee qof magacaaga saxda ah kugu yeero. Feng. Argagax. Ninkan aan u naqaanay Liu Guanying, tuuga halyeyga ah, magaciisa dhabta ah waa Feng. Linhan wuxuu sii waday hadalkiisa, haddii aad isku daydo inaa idisho, waxaan hooyada u sheegayaa in wiilkeedii dhabta ahaa uu dhintay 4 sano ka hor. Sheekada dhabta ah waa tan, 4 sano ka hor, Feng, Liu Guanying, kan dhabta ah, iyo Linhan waxay ahaayeen 3 askari oo saaxiibo ah. Waxay galeen howlgal buuraleyda ah.
laakiin Lin Han ayaa khiyaano sameeyey wuxuuna dilay saaxiibkood Liu Guanyin. Ka hor inta uusan dhiman, Liu wuxuu Feng ka codsaday, fadlan hooyaday iyo gabadhayda Tun ii daryeel. Feng wuu oofiyey ballantii. Wuxuu yimid magaalada Dingzhou. Maadaama hooyada dhashay Liu ay indhoole tahay, gabadha Tun na ay yarayd, Feng wuxuu go'aansaday inuu magaca saaxiibkiis qaato. Wuxuu wejiga isaga dhejiyey nabar been ah, wuxuuna codkiisa ka dhigay mid xabeeb leh si uu u jilo Liu Guanyin. Sidaas ayuu 4 sano ugu shaqaynayay qoyskan, isagoo iska dhigaya wiilkoodii dhintay. Hadda markii Lin Han uu sirtaas ku hanjabay, Feng wuu iska dhaafay dilkii. Wuxuu ku laabtay guriga isagoo niyad jabsan. Laakiin guriga markuu tegay, waxaa sugayay gabadhiisii Tun. Gabadhu wax way qoraysay. Feng wuxuu go'aansaday inuu caawa runta u sheego gabadha maadaama Lin Han uu sirta hayo. Tun ayuu yidhi isagoo iska bixinaya nabarkii beenta ahaa ee wejiga. Anigu aabbaha ma ihi. Aabbaha wuxuu dhintay 4 sano ka hor. Laakiin jawaabta Tun ayaa ka yaabisay. Gabadhu may nixin. Waan ogaa ayay tiri. Sidee ku ogaatay ayuu weydiiyey. Aabbahay ma jeclayn nacnaca, adiguna waad jeceshahay. Aabbahay wuxuu ka cabsan jiray bakaylaha, adiguna kama cabsatid. Sanado badan ayaan ogaa, laakiin waan iska aamusay sababtoo ah ayeeyo ma xamili karto geerida wiilkeeda. Labadoodu way is ogadeen. Hadda sirta waa la wadaagay, culayskiina wuu ka degay. Laakiin weli khatartii weynayd way taagan tahay. Dhanka kale, Cao Sheng, ninka xeelada dagaalka, wuxuu helay dhaxal aabbihiis uga tegay. Waa buug qadiimi ah oo ku qoran farta qadiimiga ah, waxaana ku dhex jirta khariidad muujinaysa dooxada qoraxdhaca. Taariikhda ku qoran waa sanadkii 38 oo ah 4 sano ee la soo dhaafay. Tani waxay xaqiijinaysaa in Cao Jianda, aabbaha dhintay, Lin Han iyo Feng Buhay ay dhammaantood ku lug lahaayeen dagaalkii 4 sano ka hor, halkaas oo markii ugu horreysay lagu arkay magaalada cirka. Laakiin waqti looma hayo taariikhda. Hadafka hadda waa in la galo macbadka Wuji, halkaas oo looga shakisan yahay inay ku dhumaalaysanayaan ciidanka madow iyo walaalkii Sin Qiyan. Macbadka Wuji waa meel aad loo ilaaliyo. Derbiyadiisu waa dhaadheer yihiin, albaabkana waxaa jooga askar aan cidna u ogolayn inay soo gasho. Sida keliya ee lagu geli karo waa qashinka iyo saxarada. Si fiican ayaad u maqashay. Macbadka waxaa ku jira 100 askari. Askartaasi maalin walba waxay u baahan yihiin cunto, waxayna soo saaraan qashin iyo saxaro. Maalin walba gaari gacan qaada saxarada ayaa macbadka gala oo ka soo baxa. Ninka wada waxaa la yiraahdo Chen Qi. Cao Sheng wuxuu dejiyey qorshe waali ah oo loo yaqaan howlgalka saxarada. Sin Qiyan, ugaarsatada, ayaa loo ekaysiin doonaa ninka nadaafadda ee Chen Qi. Waa inay barato sida loo socdo iyo sida loo hadlo codkiisa. Xie, wiilka taajirka ah, ayaa baraya sida codka loo bedelo. Haye, aniga waa Chen Qi, ayay tiri Sin Qiyan. Maya. Codkaagu waa dhuuban yahay. Waa inuu noqdaa mid qalafsan, ayuu yiri Xie. Markii dambe waxay go'aansadeen inay iska dhigto qof hargab haya si codkeeda xabeebta ah loogu marmarsiyoodo. Talaabada labaad waa in la bedelo gaariga dabdamiska. Magaalada waxay leedahay saldhig dabdamis oo leh gaari biyo lagu dhaamiyo. Cao Sheng wuxuu rabaa inuu gaarigaas bedelo oo uu ku rakibo qalab qarsoodi ah. Yun Niang, gabadha caawiyaha ah, iyo Xie ayaa tagay saldhigga. Xie wuxuu askarta u keenay khamri iyo cunto, isagoo ku maaweelinaya sheekooyin. Inta ay askartu sakhraansan yihiin, Yun Niang waxay si farsamaysan u gashay bakhaarka, waxayna soo bedeshay gaarigii dabdamiska. Talaabada saddexaad, diyaarinta gaariga saxarada. Waxay gaariga saxarada ku mariyeen saliid si fudud u gubata. Urta saxarada ayaa qarinaysa urta saliidda, marka askarta albaabka jooga ma dareemi doonaan. Ugu dambayntii wax walba waa diyaar. Sin Qiyan, oo xiran dharkii ninka nadaafadda, wejigana laga bedelay, ayaa riixaysa gaariga saxarada iyadoo u socota albaabka macbadka Wuji. Wadnaha ayaa garaacmaya. Haddii la ogaado, waa geerideeda. Haddii ay guulaysato, waxay heli doontaa walaalkeed. Cao Sheng wuxuu isku muday irbad si uusan u seexan sababtoo ah cudurkiisa hurdada. Wuxuu taagan yahay meel fog isagoo daawanaya ciyaarta uu soo diyaariyey. Albaabkii waa la furay. Askari weyn ayaa soo istaagay. Joogsada. Maanta urtaadu way ka duwan tahay tii hore. Talow Sin Qiyan ma geli doontaa mise halkaas ayaa lagu fashilmi doonaa? Halkaas ayay ku dhamaatay qaybtii labaad ee seasonka 1. Sida aad sheekada ula socotid qaybta xigta. Ha iloobin inaad subscribe garayso kanaalka si aadan u seegin qaybaha soo socda. Fadlan fiidiyowga leeg saar oo nala wadaag aragtidaada faalooyinka. Mahadsanid daawashadaada. Nabadgelyo.